xaqiiqo waxa ah oo aan xaqiiqo ah oo aan halkan ummadda fariin u marinaya caddo gude iyo gruubka la socda midnaba ma rabo inuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweyne noqdo waxaan ku sheegayaa madaxweynuhu de ummadda uu madaxweynaha u yahay baan ka midnahay namanu askar u shaqeyso oo gaaramanihin wasiiro u magacawday manihin inuu xisbiga hoggaamiye maxaan ku siyaasiyiintii waaweynaa ee xisbiga wadani ka baxaan xisbiga oo ka yaacaan oo ay madax dhaqameedkii xisbiga taageersanaa ka yaacaan oo ganacsatadii xisbiga taageersaneed ka yaacaan bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah magaalada Hargeysa kula yeelan doona Suldaan Ibraahim Yuusuf Cabdiraxmaan Geelle oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Garxajis Suldaan wada socotay dhawaan waxa dalka dib ugu soo laabtay Suldaan Cismaan Cadde Gude waxa uu sheegay hadallo uu ku durayo muxuu ahayd madaxweynaha Soomaaliland oo dadka qaar u arkeen hadallo kicina inay yihiin adigu hadalkiisa markii aad eegtay ka Suldaan Ibraahim ahaan maxaa ku baxay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعده هرتا soo dhaweyntii gudoomiyihii hore ee gudida Garxajis iyo hadalladii laga yiri goobtii soo dhaweynta sida runtii hadalla qadaf ah oo ama isaga ha ahaato ama xubnihii soo dhaweeyay qaar ka mid ah ha ahaatee hadalla badan oo qadaf ah oo aan munaasib ahayn baa meesha laga yiri sida runtii iyaga cid hadalka lahayd ee gudoomiyaha hore ka mid ka ahaa wax sharaf iyo sumcad ah oo ay hadalladaas u soo kordhiyeen sida xaqiiqadii may jirin cidii ay u hadlayeen ama reerkii ay u hadlayeen ay afkiisa ku hadlayeen wax sharaf iyo qiimo ah oo ay soo kordhiyeen may jirin cidii ay ku durayeen ee ay ku maxaan ku raday ku durayeen من قذف يميل كدع أيوكوها سيدا رنتيا أنيقو شخصية ديدا وحن كبحين يا رالي قلين دمان عيد كسته أما ريركي أي هذا الكي أفكي سكوها الليين هنقطو أما عيدي أي دوريين هنقطو أما قود هام باقراني مدى السومالاني ومدى رير السومالان هنقطيه عيد كسته أو هذا الكاسي محان كور هذا سامين كلها أما عيد كسته أو دبسطي وحن كسين يا رالي قلين iyo bolojis waan ka raali gelinayaa sida runtii horta gudidani waxa waa gudidii hore ee Garxajis hawshii iyo qorshihii gudidani loo igmadayna waxay ahayd gudi aan maxaan ku kaalintii buuxinin manay ahayn maanta de waxay ahaydun inay gaabsadaan oo mar haddii gudi kale la sameeyay ama reerkeedii maxaan ku raday cid kale u soo cumaamaday inay halka ku joogaan oo ay ka gaabsadaan oo ay maxaan ku raday de maadaama oo ay hawshii loo igmaday horaba waxba yani wax ay ka qabteen aanay jirin inaanay durin cidna durin maadaama ay waqtigoodii dhamaaday ama gudi kale la sameeyay ayaa qurux badnayd sida runtii horta waxa weeyaan gudidani waxay noqotay gudi siyaasadeed waxaanay u muuqataa ama dadku bilaadanku ka aaminsan yahay xitaa Garxajis dhexdiisu ka aaminsan yahay inay tahay gudi siyaasadeed oo ku biyo shubatay siyaasadda xisbiga wadanina sidii uu ku soo aasaasmay ama nidaamkii uu xisbigu ku samaysmay maxaan ku iyo taageerayaashiisii soo aasaasayba waxaad moodaa inay maanta aanay cidi kaga hadhin ama dhaqan haato ama siyaasiyiin haato ama ganacsato haato cidii xisbiga loo tirinayay ama cidii maxaan ku xisbiga lafdhabarka u ahayd waxaad moodaa inaanay imika cidiba kaga hadhin laakiin Suldaan maxaad ugu aaninaysaa in gudidan uu hogaaminayo in Cadde Gude aad ku sheegtay gudidii hore in ay u xuubsiibteen xisbiga mucaaradka ay wadani maxaad cadeymo haysaa waxa weeyaan horta xisbigan wadani markii hore de xisbi mucaarad buu ahaa xisbi qaran buu ahaa taageerayaal badan ayuu watay ama taageerayaal badan buu lahaa ganacsato leh oo siyaasiyiin leh oo maxaan ku dhahdaayay madax dhaqameed leh oo haween iyo dhalinyaro bulshada nooc walba leh waxa jiray horta markii hore aan kugu yaran noqday xisbigii hore ee looran xisbiga kulmiye markii uu madaxweyne ka ahaa ee qarankan hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa la oran jiray xisbiga kulmiye
waa laba xisbi oo isagaa mucaarad iskugu filan xaqiiqadii waxaynu xasuusan karnaa xisbigaasi waxaynu xasuusan karnaa inuu xisbiga kulmiye dhexdiisa ishayay oo mucaarad isku ahaa oo ay hawl badani dhexdiisa ka jirtay markii intii aanu madaxweyne aanu musharax ka noqon Muuse Biixi Cabdi waxa weeyaan dagaal badan ayaa xisbiga dhexdiisa ka dhacay xifaaltan badan baa jiray waxaynu xasuusan karnaa ama aynu garanaynaa inuu Muuse Biixi mararka qaar ku dacwi jiray isagu oo meediyaha marin jiray inuu sawirkiisa ama maxaan ku leeyahay qofka stiikarkiisa sita uu dib la kulmi jiray oo oran jiray sawirkaygii ama stiikarkaygii qofka sita dambiil uu noqday taasna waxa sababi jiray waxay ahayd dagaalkii ka dhaxeeyay ama ka taagnaa xisbiga kulmiye dhexdiisa waxaanu xasuusan karnaa markii uu ku adkaaday ee musharax ka noqday Muuse Biixi Cabdi uu la wareegay hogaankii inuu noqdo musharaxii iyo gudoomiyihii xisbiga kulmiye dhammaan intii ay isku hayeen siyaasiyiinta ahaa ee xisbiga kulmiye ku jirtay waa kuwii ka dareeray wasiiradii agaasimayaashii dhammaan wixii dawladda kaga jiray ee ay isagaysayeen waxay u soo guureen xisbiga wadani markii ay xisbiga wadani yimaadeen waxay si fudud ugu guuleysteen inay hoggaanka xisbiga qabsadaan inay awood badan ku yeeshaan bay si fudud ugu guuleysteen taasina waxay keentay inuu xisbiga maxaan ku ahay siyaasiyiintii waaweynaa ee xisbiga wadani ka baxaan xisbigii oo ka yaacaan oo ay madax dhaqameedkii xisbiga taageersanaa ka yaacaan oo ganacsatadii xisbiga taageersaneed ka yaacaan oo dhammaan laamihii ama awoodihii uu ku tiirsanaa xisbigu markii hore meesha ka baxaan markii ay guddidan la sameeyey ee ay guddidani timi waxa ay hoos gashay ama waxa gacanta ku qabtay wadaniga cusbaa ee ka yimi kulmiye taas ayaa dabeeto ka dhigtay in ay hagaan siyaasiyiintii xisbiga wadani gacanta ku qabatay marka inay hagaan marka wadaniga cusub waxa loo jeedaa baad sheedaysaa muxuu ahayd gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan xirsi oo qura sheegmaya dhammaan groupkii ka yimi kulmiye wasiirada faraha badan ku jireen soo galay wadani oo dhanbaan u jeedaa sida runtiina imika waa cid kaliya ee hogaamisa xisbiga wadani ee hore maanta qof iyo laba lagama soo helayo xisbiga oo wadani ku jira waxa weeyaan cid imika hogaamisa ama gudoomiyayaasha ka ah ama gudoomiye ku-xigeenka ka ah ama siyaasiyiinta iyo xogeyaasha ka ah 90% waxaan oran karnaa waa kulmiyihii ka soo guuray xisbiga kulmiye marka kuwaas ayaa horta qoladan madax dhaqameedka ahayd ee guddida garxaji ee guddidii hore garxajisna iyaga ayaa maxaan ku ahday giideeya ama hogaamiya ama maxaan ku jeheeya oo ay ku xidhan yihiin sida runtiina intii ay jireen xisbiga wadani waxba umay qaban reerkii ay ka tirsanaayeen ee loo ugu cumaamaday ee ay guddida u haayeen wax allaale waxay u qabteen ma jirin maxaan ku idhaahdaayay musharaxnimadii iyo madaxweynenimadii loo socday ee xisbiga wadani islahaa dalka ku hogaamisidna waxaad moodaa jaaniskaana inay lumiyeen oo ay maanta si kale u bedeleen maanta wuxuu shaki badan kaga jiraa taageerayaashii reer wadani in aanay haddii maanta doorashadii ay dhacdo aanay xisbiga wadani awoodi karin ama aanu kasban karin inuu helo maxaan ku raahday codka ummadan reer Soomaaliland ama codkii lagu gaadhay kursiga madaxweynenimada waxaad moodaa inay taas ka niyad jabeen oo aanay ummadii taageerayaashii ay hawshaasi hunguri jab kaga dhacay marka guddidan uu hogaaminayo in muxuu hayday in cadda gude ee guddidii hore garxajisaad ku sheegtay waxa soo dhan hadaanay ku shuqul lahayn maxay u taageen hadaa wallahi horta deeymka guddi maaha oo guddidii garxajisima maaha waa guddidii hore runtii imika inaan halkan kala hadlana waxa keenay su'aalo badan oo ay bulshaduna weydiinaysay
oo ay ummadda reer maxaan ku ummadda taageerayaasha wadani u ah mucaaradkii annagana weydiin jireen ama ummadda yacni aanu odayaasha u nahay madax dhaqameedka u nahay garxajisna su'aali jireen ayaa oo aanu in badan maxaan ku raday ka warwareegi jirnay iyo jaaniskeedii halkan horta ka soo baxay waxa weeyaan shir jaraa'idkoodii maalintii dhaweyd qabtay wuxuu muujiyay wejigoodii dhabta ahaa iyo sidii iyo higsi iyo yacni nidaamkoodii dhaqan ee ay u xil saarnaayeen buu muujiyey iyo waxay aaminsanaayeen runtiina annaga waxaa nala weydiin jiray oo su'aalaha dadku nagu weydiin jiray waxay ahayd war maadiin wada hadashaan oo isku tagtaan oo tafraaruq reerka ka daysaan oo maxaan ku hay guddidan hore maxaa yacni mucaaradada ma ka daysaan waxyaabo badan markaa maanta anigu fursadda halkan waxaan kaga faa'iidaysanayaa waxa weeye horta annagu waan wada hadalay marar badan baanu la fadhiisannay marar badan baanu u yeedhnay noo soo fadhiisan waayeen al-aakhir waxaa dhacday inaannu annagu casuunno iyaga casuunno oo markay casuumaddeedii iman waayeen aannu u kaashannay inay sidii aannu isku soo hor fadhiisan lahayn musharaxa madaxweyne ee maxamed cabdilaahi ciro oo ah nin aad u wanaagsan oo sharaf badan ninkaasi wuu isku kaayo keenay waannu wada hadallay arrintii aannu ka wada hadlaynay waxay ahayd inaannu wada tashanno oo waxa ummadda u dana ee garxajis u dana ee cid walba u dana ka wada shaqayno laakiin taasi iyaga xaggooda kamay suurtogelin waxaan halkan markaa ummadda reer somalilan ama ummadda garxajis ee aanu hoggaanka u nahay aan u sheegayaa intii nagu canaananaysay ama nagu dhaliilaysay war maxaa wada hadli weydeen nimankaas wax allaale wax meel loo gaadho oo aanu hagrannay ama meel maxaan ku dhahdaayey wada hadal iyo isku caqli celin ay ku jirto oo aanan isku dayin ma jirto waan markaanu ka aayaweynay markay noo qabsoomi waayeen markay noo joojin waayeen markay maxaan ku dhahdaayey wadadii qalloocnayd ay marayeen nooga weecan waayeen ayaa horta go'aankan guddida kala yimi iminkana guddidan dambe ayaa ah guddidii garxajis ee rasmiga ahayd ee ganacsigii reerku la socday ee aqoon-yahankii reerku la socday ee waxaan ku dhahay waxgaradkii reerka oo dhani ay ku dhan yihiin waa guddidan runtii dee dadkii soo dhoweeyey ee halkaa kaga hortaga waxay ahaayeen dhallinyaradii weli dhallinyaradii dee caadifadii baa ku jirta weli waxba badan ma fahamsanaa oo guddidan wax badan kama fahamsanaa walow ay in badani oo dadkii soo dhoweeyey ahay arrintii maalintii dhawaad halkaa ka dhacday ay wax badan ku baraarugeen oo ay dadku in badan wax fahamtay laakiin suldaan dadka qaar baa isku ekaysiinaya muxuu hayday sidii garaadada gobolka sool ay ku soo galeen laasacaanood iyo sidii caddaguud ee garoonka diyaaradaha ugaga soo degay xagga ammaanka markaad u eegto maana isku muuqan karin way isku muuqan karaanoo waxaan odhan karaa garaad cali garaad jaamac garaad cali markii uu laascaanood imanayey dee hub iyo ciidan buu watay laakiin axmed cismaan caddagude hub iyo ciidan muu haysan laakiin erayadii uu ka lahaa ee uu ereborka hortiisa ka yidhi ee uu bulshadii halkaa joogtay ku yidhi dee tii garaad jaamac garaad cali waxba kamay sokayne qorigii iyo calankii un baanu sidan markaa waxaan leeyahay arrintaasi waxaan odhan karaa wallaahi xagga mabaadida ma kala foga yacni dhaqamada marka dadku qaarkood qiimeeyaan laakiin waxaan u sheegayaa anigu oo aan maanta doonayaa inaan halkan ka muujiyo oo aan idhaahdo ummadda garxajis hawsha ay walaaladeen inamadii aynu guddidii hore ahaa ee aynu maaragtay xilka reerka saarnay waddadaa ay ka weecdeen waddadii hore aynu u igmanay way ka weecdeen sida oo kale iminka haddii ay rabaan inuu reerku dhismo inuu reerku hagaago inuu wuxuu doonaya higsado dee dhaqamadan ay wadaan waa dhaqamo aan maxaan ku dhahdaay ka soo horjeeda arrimahaasoo dhan laakiin suldaan dadka idinkaydii arkaya in aad muxuu hayday madaxweynihii la safan tihiin oo muxuu hayday garxajis aad ka soo horjeedaan dadkaasi maxaad ku qancinaysaa waxa weeyaan horta anigu shakhsiyadayda dee waa la garanayo nin mucaarad ahaa oo maxamedow in badan halkaa codad badan kaga duubtay oo saxaafadda wadaagteen oo mucaarad ahaa ayaan ahaa iminkana dee weli mucaarad baan ahay waxaanan mucaarad kale meehiye dee wuxun baan doonayaa mucaaradadaydu waa toosin wixii xukuumadda ay ku wacantay ee ay qabatana dee inaan isku garab taago waa waajib muwaadilnimo oo saaran
wixii ka qalloocdana inaan toosiyo oo dhahda waxaasi waa saayasaasi waa waajibi saaran inaan cadaawadeeyo oo aan cadaawad ka dhiga mucaaradadaydana dee waa khalad waxaan ku sheegayaa madaxweynuhu dee ummadda uu madaxweynaha u yahay baanu ka mid nahay namanu askar u shaqayso oo gaara ma nihin wasiirro u magacawday ma nihin waxa weeyaan waxaan u sheegayaa ummadayda oo aan mar walba leeyahay waa Garxajis wuxuu doonayaa waxay ummadda reer Soomaaliland doonayso waxa uu doonayaa inuu dalkan hoggaankiisa qabto oo madax ka noqdo sida uu ku qabanayaana cadaawad iyo nacayb iyo naxli maaha waanaynu wada rabnaayo anigu waan rabaa oo boqolaal kale oo dawladda ku jiro wasiirro leh oo agaasimayaal leh oo shaqaale dawladeed leh oo ciidamo qaran leh ayaa mabda'a aaminsan kuwaasun baana la mid ahay waxa weeyaan in badanina waxaad moodaa inay si khaldan iyo walda khaldan dadka kaga faa'iideysanayso oo ayagoo mabaadi kala sita in ay dadkii jaha kale u jahaynayaan markaa waxaan leeyahay anagu madaxweynaha de waa noo madaxweyne qaranu laakiin wax si gaar ah nooga dhaxeeya iyo dan gaar ah naga dhaxaysa iyo shaqaale gaar ah u nahay midna ma jirto waliba waxaan u sheegayaa ummadda Garxajis waxaan u sheegayaa waxaanu nahay mucaarad waxaanu rabnaa kursiga inaanu madaxweynaha bedelay ku xiga inuu noqdo waxaanu rabnaa inuu madaxweynaha bedelaya uu noqdo madaxweyne Garxajis oo ay dhammaan ummadda reer Soomaaliland nala aqbasho nala qaadato nala u codayso maxaan ku kalsooni iyo aaminaad buuxdana ay u hayso laakiin suldan dadka qaar bay soranaya maxay mar hadii la dooriyo madaxweynaha bedeli lahaa Muuse Biixi uu noqdo Cabdiraxmaan Ciro system kan uu hadlayo maxay Suudaan caddo guud micid buu soo dhaweynaya mise cid buu ka kaxinaya absolutely waa su'aal wacan xaqiiqo waxa ah oo xaqiiqo ah oo aan halkan ummadda fariin u marinaya caddo guud iyo groupka la socda midnaba ma rabo inuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweyne noqdo midna ma rabo inuu Garxajis hoggaanka dalka qabto mar rabaan baan aaminsanahay oo aan leeyahay caddo guud iyo aan 4-5 qof la socda gudidii Garxajis ee la sameeyay caddo guud 3-4 qof baa la socda muddo imka dhowr 3 sano ama ka badanba gudidii may jirin maanta caddo guud intuu 10 nin oo gudidii hore soo kaxeeyo ma soo fadhiisan karo miiska ma keeni karo 3-4 nin oo ay isku group yihiin oo ay hawshan oo isku mabda yihiin buu wataa laakiin gudidii hore bari hore iskaga hadhay waxa weeyaan waxaan ku sheegayaa mana rabaan dhismaha Garxajis mana rabaan hoggaan madaxweyne dalkan qabto oo Garxajis mabaadi kale ayay wataan taasina waqtigeeda cadayn doona oo way iman doontaa waxaanan aaminsanahay maanta dadkii reerkii loo jiray Garxajis iyo ummadda reer Soomaaliland ba wax badan bay fahamtay wax badan bay arkeen wax badan baa u muuqday insha Allah iyaga oo midaysan oo gacmaha haysta ay haday Cabdiraxmaan noqonayso iyo haday madaxweyne kala noqonayso iyo haday mid kala noqonayso nin Garxajis oo kalsooni lagu qabo oo la aaminsan yahay oo waxaan ku ummadani ku qanacsan tahay hoggaankiisa ayay dooran doontaa Muuse Biixi dabadi insha Allah